kadib markii madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu furay kalfadhigii 38 ee baarlamaanka Puntland ayaa mudanayaasha baarlamaanku waxay su'aalo ka weydiiyeen waxa ka qabsoomay ballanqaadyadii madaxweynaha iyo xaaladda guud ee haatan ay ku sugan tahay Puntland qaybo kamid ah su'aalahaasi iyo jawaabahoodina waxa kamid ahaa mushaaraadka shacabka ciidamada gaar ahaan iyo xukuumadda mushaaraadka aad bay u leeyihiin kalfadhiga hadda kan ka horeeyay 6 milyan iyo 600 kun oo waxa weeye extra oo isticmaashay madaxtooyada iyo meelo kale oo ka maqan dadkii lahaa madaxyada lahaana waa la waayay halkaas lagu cadeeyay meel lagu sheegay lama hayo mushaaraadka shaqaalaha dawlad bay kiraydo in marka qaarkood dakhliga dawladda iyo kharashka dawladda ay islahay ilaa hadda dawladda waxay gashay 3 dagaal ilaa 4 dagaal bay gashay dagaal joogtada oo ku jirta oo ay gelisada dagaalkii bilowday bishii Oktoobar 1-deedii 2014 ila dawladdu way ku jirtaa haddana waxaa idin sheegaya ciidanka dawladda intooda hawshaada ku jirtaay noqonay in mushaar qaataan waxay qaataan mushaar waxay qaataan gurna ka badan mushaarkooda waxay qaataan raashin waxay qaataan dry food waxaa u dheer intaas oo dawladda ay ku jirta mar walba qarashaad la xiriira dayactir logistics iyo wax ka soo cid u baahan yahay mudane madaxweyne wadanka waxaad ka tagtaa iyadoo colaadi jirto iyo abaar waliba markaa waxaan ka tagtay iyadoo colaad iyo abaar labadaba jiraan ayaad laga tagtay waxaad soo noqotay iyadoo gaalkacyo colaadi ka jirto miyaanay ahayn inaad ka degto gaalkacyo si aad dadka ula wadaagto dhibta taas waa su'aal waa soo gaabinaya wuxuu yiri walaalkay bixitaankaaga iyo weerarka Puntland ayaa isku aadan mar walba su'aashaas waxaa weydiinaysaa wada duulaanka soo qaad anigu waxaan marayaa anoo inta sii qiyaaso oo la soo diri doonay waddanka dhafan ma ilaalo mudane madaxweyne safaradu waa bateen oo safarada madaxweynuhu waa badan yihiin dhaqaalaheennuna waa kooban yihiin miyaanay ahayn si dhaqaala loo beeqaamiyo safaradaada inaad soo gaabiso ilaa haddana ma hayno wax mira dhala oo safaradaadu keeneen oo nooma aad sheegin waa su'aalaha dadku annagana weydiiyaan haddaan u baxaa dalka dawladda uga baxana waxay la tahay sheegay Cabdiweli diyaarada raaco iyo hoteelada saxiixiisa uma dhabo in badan waa soo arkay waxaan u baxay waxa weeye waa waddankan difaaciisa bay ka mid tahay waxay ka mid tahay horumarkiisa oo waxa anigu inaan hoteelada soo saxiixay iyo inaan diyaarada raaco waxay la tahay haddii wixii soo qabto aniga ma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال إذا كمان وحوية مدرب مدحوينه دولة الصومالية هي بونتلا كمتها. عندها هي كمتها هي مقدشة هي برحلي وتضرب بقول يصدق كيلومتر. بونتلا وأنا أفر قول هي بربر كيلو على حساب يسوع صومالي حفظ يبسطه. بونتلا شد هي قول هي بربر على قدس. marka masraxa Soomaaliya la fadhiyo hadda laba cod bay ku leeyihiin mudashada hada misaaliyo saddex cod bay yeelanayaan Puntlandna waxay leedahay hal cod muxuu yahay mowqafka halkaa ka jira Puntland maxay u qaateen 8 waana waxa ka toon ku qaadan Soomaalida Puntland gaar leedahay ma xabsaadka loo siiyay Soomaaliyeeda iyo meesha Soomaaliya ka taagan tahay ma in la siiyay anaga xubno dheeraad haddaan u keenay lagu caanaysan Soomaaliya xewaan ceeb laga dhigay rasiid darro faamasan maxamed arrinta uu ka hadlo hadda ay sheegay anigu ma jecel wada in la xiro raaliga kamid hadda la joojiyo inta badan madaxweynaha ayaa ka jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen mudanayaasha baarlamaanku walow ay jireen jawaabo ay saluug ka muujiyeen xubnihii ka midka ahaa baarlamaanka iyagu su'aalaha weydiinayay waxaana su'aalahaasi dib loogu dhigay fadhiga kan xiga ee madaxweynuhu ka soo qayb gali doono Cabdi Fataax Cabdullaahi Kalsan TV Garowe.